عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه gabadhaaday oo 20 sano ka yar ama 18 sano ka yar ku imaato ku dhahdo ani wiilkan baa doortay waxa rabaa inaan guursado go'aankana waa qaatay asaga ma hay qof kale ma yeelay markaas waxa u maleynaa waxay ku noqonaysaa hadal culus oo adiga aqbali karin khaasatan marka ogaatay oo aragtay inuu wiilkan uu yar yahay mas'uuliyina ma qaadi karo ayadana waa yartay gurina ma furi karto markaas waxa arkaysa in labadan qof go'aankii qaadanaya waa go'aan khaldan oo hadana adiga waalid ahaan duulaan ku yahay oo go'aankaaga la fiirin iyo ra'yiga la ixtiraaman markaas maxaa sameynaysaa waxa u maleynayaa waxa u arkaysa inay tahay wax aad u culus waxa uu sahlan sameyn kartaa inaad telefoonka ka qaadi gabadha ina ayada garaacdi qolku soo xirti ninku uu koowaad albaabka soo garaaco ina tafadal gabadheedu waa ku guuriyay fiican baa tahay laakiin waxa ogaataa 20 sano kadib gabadhaaday xataa hadaa nin kale u guurisay gabadhaada waxay u arkaysaa inay nolol habi iyo jacayl iyo nolol iyada rabta in adiga ka saartay markasna waxay ku arkaysaa in dambi nolosheeda ka gashay marka maxaa la sameyn karaa marka waxa laga rabaa in ogaatay ka waalid ahaan saddex shay in ogaatay gabdhaha markii go'aamahaas qaataan waa ka adag yihiin wiilasha inaan dhaqso lagu bedelo ma aha waxay u baahan yihiin waqti dheer waa aragna gabdha go'aankaas intii qaateen oo guriye la gubay laga tayay oo hadhow 6 bilood kadib guriga dhisan furniin buu ku dhamaaday laakiin gabdhaha badana go'aankaas hadii qaataan waa sidii uu qaateen wiilasha ma wiilasha kala dafayeen marka labaad waxa ogaataa gabadhaadu waxay maraysaa hadii 18 14 sano u dhaxayso waxay maraysaa age ama xilli ayada waxay isku aragtaa aragtideeda iyo fikrigeeda iyo go'aamaha in ayada leedahay ayada baa saxan qof kala ra'yi ma laha ayada ra'yigeeda aad u saxan mid saddexaad waxa waalidku inuu ogaado gabadhaaday xilligan asbaabaha ku qalaftay inay go'aankaas qaadato sida ognahay ilmaha markay yar yihiin waxay u baahan yihiin jacayl inay ogaadaan maxay tahay in la siiyo muxuu ahaa ihtimaam ama la siiyo care ilmaha markay yar yihiin wiil iyo gabar u baahan laakiin gabdhaha aad u baahan hadii aabaha ka weyso ama adeerka ama walaalka jacayl wuxuu u diyaar tahay qofka koobaad oo albaabka soo garaaca ama telefoon la hadlo ama u dhaho adiga muxuu ahaa gabar waxa taa caadi ahayn in dhahdo waa kan kiya sugaaya la nolosheeda dhan waxay sugaysay inuu qof jeclaado aaba ama adeer nooc kale hooyo waa jeceshaha waa isku nooc laakiin xataa nooc kale aaba ama hooyo inuu jeclaado jecel hadal la ciyaar la sheekiyo dhageysto gabdhaha waxay u baahan yihiin badan dhageysto wiilkana imaada albaabku soo garaacay ama albaabku soo garaacay telefoonku soo galay wuu dhageystay wuxuu dhahay adiga jiro gabadhu waxay leedahay adiga ma qof kale ma rabi maxaa sameynaysaa marka ka waalid ahaan waxa laga rabaa marka hore iyo marka labaad iyo marka saddexaad inaad ka fogaati gacan iyo dil iyo weerar iyo dharbaaxo iyo telefoon laga qaada iyo qol lagu soo xiray in zamankan dadka ma kala celin karti زمن قبل لو سو حرج ولا قبح زمان كان إنيس أركان سوشيال ميديا مركزي تاعيين المهنة مركا إنا قوان قادتي أنا وحا كدا وين كرا هضل وحلا هذا هضل منو كدا وين كر شيء كذا وأرين وين وحن كل واحد وسنا حديث كرسول صلى الله عليه وسلم ويل بقوم على هذا القهر وعقوله يا رسول الله وحي أقرات إنا الزنا زني أقرا رسول صلى الله عليه وسلم حنا قوه كدا وي هضل مركا هر وحا أقرات هضل marka mid kalmada labaad waxay ogtahay waxa ogaataa gabadha markii wiil doorato oo si emotional iyo rabitaan aad u doorato waxay maraysaa saddex marxaladood maraysaa marxaladda koowaad waa marxaladda iyada ku dhigta asaga tacalluq ama rabitaan aad marxaladdaas waa marxalada badan la qaato go'aamaha inay guursadaan oo 6 bilood kadib inay dhamaato guurkaas ama sanad ugu badnaan gurigaas uu furfuraa marka maxaa laga rabaa hadii ku imaato kulad aaba kan baaraba ina marka hore la hadashay isku daydana aqal u celisay hadii هذا الجديد إني مقشة وأصلا ما هو قفل كذا أركن أديه القرآن صار بيوبهان تام بوهال السحر وحلا ذا هي وايها أنا رأي ماذا بالويلك أكو صهد دونان وحسمين إسا هذا أي ماذا هذا البعد عايو شيء كذا ويدراني إسا دقيسو وإن شاء الله وتقول سنين بإذن الله قولوا قدام بينهم بس هذا بالعالم صبرته ويلكنا أصبرنا محاسمة سأذيك تلفون كهوس هوس أها أركتدي هوس اللي سكأرك جري وصار كنت كوريا كنتي وحديث أبا هدا ويل كربتي وأد وربتي وحكارمنا أنا يقعد سو أنا كو أقوله اللحظة لكن أنا جوا ملك لا آدم أكتيد كو أرك مرتاس محس منسا قبل حسيني سا
kalsooni aad weyn marka aniga hadalkay waa sax aabahaygu aaminay aan waalidkan waalid qaali ah in hadalkiis raaco waay u dheeraa sheekada 2 bilood 3 bilood socota gurna ma dhicin muxuu ahaa meher yani waxa dhacay wax adiga jijiidaysi marka dambe waxa marxalada labaad waxay gabadha markay aragto inuu waalidkeedu uu aqbalsan yahay asagii wixii bilowsi inuu ku mashquusho marxalada waxay gelinaysaa marxalada qiimeynta waxay bilowaysaa in aragto tasarrufaadkiisa ama dhaqamaha iyo biloway inay ka fakarto adiga waxa la karba marxaladan qawaalid ahaan ogolaan hal marna inay asaga ayada hadal ku soo waarido adiga hadal ku keento badana waxay isticmaalayaan aabaha saas u sheeg waalidka saas u sheeg aniga waa ku diyaar ba ahay ayada migay ku imaato asaga waa diyaar waa san xalaamay asaga ay imaado yani tus inuu asaga mas'uuliyadda saaran tahay waxay bilowaysan dhahdo adiga ma aabo tagtay ma la hadashi ani maxaa dhexdeena ugu jiraya kaar aaba la hadal waxay bilowaysaa hadal waxay arkaysaa inuu hadalkiisa is dhaafsan yahay ayada hadal buu sheegay aabahana waalidka hadal buu la imaanaya waxay arkaysaa ballamaha inuu ka baxayo waxay arkaysaa dhinacii awal u arkin bi adiga dhinaca ku arkaysaa waxay arkaysaa inuu mas'uuliyad qaadi karin waxay arkaysaa hadalkiisa inuu kala badbadan yahay waxay arkaysaa inuu asaga bilow inuu waalidka carcarro markaas adiga waxa bilowaysaa inaad weydiiso oo aab habel aaway oo maxaa ku dhac maalmahan oo ma saas buurbe oo maaliyo saan bay guura saas muxuu u dhahay adiga inaad tusti hadalkiisa kala badbadan لأنه علم جرا أسجنا وحبضني أما قف يندوي لكن قف معها يعني نورش أسائر كيس ديك بدر إنه لقاته مركز الدحاد وحب لو سمكي أماها أركته يأديكوا أركت سي أديك أوجع الشهي سي أديكوا سودواته وحب لو يسئني استاكته قف كان نورش ملوضة أم هو كجوجية أدين وحكوا أركس لنعان إن تأب جعل دجستي سودوي لا دجالمين adigina maxaa faa'iiday marka hor ina gabadha laga dafo la cararo iyo qayliyo buuq joojisay waxa gabadha waxa u daasay fursad inay gabadha si fiican wiilka u barato laakiin ay gurigaaga joogto taas waxa ka badbaadisay guurar badan oo 6 bilood socon inay burburaan waxay ku burburaan mas dhaga adeeg iyo waalid la dagaalamaya ee jacayl baa u cararaya taas waxay keentay guriyo badan inay aad u burburaan hadaa fikrad kale ama ra'yi kale heesin hoos way ugu soo qori kartaa laakiin badana waxa ogaateen ka waalidihan anaga aan u fakarno qaababkii ilmaheena xilligii joogan isii u fakarayaan waxa la aniga ma aqbali kartaas waa adag tahay laakiin gabadhaada ina ka badbaadisay guur degdeg u burburaayo waxa laga rabaa ina wax badan ciil iyo xanaaq gadaal u celisay oo sabar muujisay ugu dambeyn aad baa mahadsantihiin sida ugu dhageysateen salaamu calaykum waraxmatullaah